hore iyo sidoo kale xildhibaan iminka tirsan golaha shacabka siyaasi saameyn badan ku leh siyaasadda dalka waa mudane Farax Cabdiqaadir oo inta badan aynu ka wareyso doono arrimo badan oo xasaasi ah sida amniga dhaqaalaha iyo horumarka dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha la qabtay iyo arrimo kale oo daahsan mudane farxad gaar bay noo tahay ogolaashaha wareysigan ku soo dhawaad telefishinka Soomaali Cable aad baad u mahadsan tahay adiga iyo telefishinka Soomaali Cable daawadayaashiisa iyo dhageystayaashiisaba wata mar kale ayaan ku leenahay mahadsanid dawladda federaalka Soomaaliya oo garwadeyn ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 3 sano ayaa u dhamaatay adiguna waxaad ka tirsaneed dawladdii hore oo garwadeynkaasina uu ka ahaa Xasan Sheekh maxaad isleedahay waa la qabtay oo aad rajaynaysay bismillaahir rahmaanir rahiim run ahaantii marka aan xusuustay in 3 sano ay soo dhamaatay iyo rajadii la qabay iyo wixii aan anigu islahaa waa la qaban doonaa kaaf iyo kala dheeri weyn baa u dhaxayso haddaan dib u laabano 2012 ilaa 2016 markii doorashooyinka la aadayay waxaa jiray howlo la soo qabtay oo qabyo ahaa oo taagnaa oo la filayay dawladda cusub inay halka ka sii ambaqaadi doonto horeyna ay u sii qaadi doonto hawl waa midda amniga ah oo ahayd in deegaanada aan xorta ahayn ee nabadiidku uu haysto laga xoreeyo in xasilin laga sameeyo deegaanadaas si shacabku ay ugu noolaadaan ama ay u dhistaan maamuladooda iyo nidaam iyo kala dambeyn ay u suura gasho in la sii horumariyo dhismihii hay-adaha ay ku istaagi lahayd dawladnimadeena gaar ahaan hay-adihii federaalka ahaa dawlad goboleedyadii dhisnaa in hoos loogu sii daadejiyey maamulkii oo maamulka loo dejiyo heer degmo iyo heer deegaan loo dejiyo sida dastuurkaba uu qorayo qodobkiisa 48aad in wadankan oo ay ka dhacday dhibaato la xiriirta sidee xukunka loo qaybsanaya iyo sidee xukunka loo wadaagaya in markii muddo la joogaba la gaaro heer ka wanaagsan heerkii hore ee la joogay 2016 taasoo ah haddii maamuladii dhisnaa ay ku dhismeen si ku meel gaar ah iyo duruufo marka laga reebo maamulka Puntland waxay ahayd in maamuladaas loo diyaariyo 3 sano kadib ama 2 sano kadib markaan koonfur galbeed tusaale u soo qaado in loo diyaariyo inay doorasho wanaagsan ka dhacdo oo tusaale u noqota in dadkeenu u gaaray bisayl siyaasadeed oo ay xukunka ku kala wadaagi karaan laakiin maanta markaan xusuusto 3 sano kadib inay dagaal ka dhaceen Baydhabo la xiriira doorashooyinkii inay dagaal ka dhaceen Dhuusamareeb la xiriira doorashooyinkii inay dagaal ka dhacayaan oo ay hadda ka socdaan gedo la xiriira doorashooyinkii intaba waxa ay tusinaysaa inaynu joogno meel aanu qofka Soomaaliyeed ku farxi karin aanuna filaynin 3 sano kadib inaynu halkaa aynu joogi doonay marka arinta ugu muhiimsan waa arinta nabadgelyada iyo meesha ay joogto iyo arinta maamul dhisidda iyo dawlad sameynta meesha aynu joogno marka anigu waxaan ahay dadka aad iyo aad rajada weyn u qabay aaminsanaa dadka Soomaaliyeed marxalada la soo dhaafay inay jireen dawladda cusubna marxaladahaas inay ka bixin doonto nasiib darro dawladdii maba aadin jidka wixii looga bixi lahaa ama wixii looga bixi lahaa mashaakilka noocaasa waqtigii badankiisa wuxuu ku baxay waxyaabo dhalanteed ah waxyaabo indha sarcaad ah waxyaabo aanan marna taabanaynin nolosha dhabta ah ee muwaadinka Soomaaliyeed iyo masiirka iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ilaa hadda aynu soo gaarnay in aynu joogno gabagabadii muddadii oo waxyaabihii asaaska u noqon lahaa in doorasho xor ah oo cadaalad ah oo qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo oo maanta la yahay si xataa la isugu keeno dawladdii federaalka ahayd iyo dawlad goboleedyadii isla wada joogay maalintii xilka lagu wareejinayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wata aad baad u mahadsan tahay marka laga soo tagay in dawladda aad wax badan aad ku dhaleeshay oo aaminsan tahay waxyaabo badan inaan wali la qaban oo ay harsan yihiin dhanka kale ciidamada nabadgelyadu waa ay ku guuleysteen xasilinta ammaanka ma la isdhihi karaa oo sida aad la socoto doorasho ayaa Baydhabo ka dhacday ciidamada ammaanka ee horseed u ahaayeen gada la socota iyo ahlu sunno arrimahaas miyay kusan ku muuqan in ciidamada laftirkeeda lagu sameeyay kobcin iyo sidoo kale in meelo badan ay qabanayaan horta ciidanka Soomaaliyeed
tobankii sane la soo dhaafay maalin kasta dadaal ayaa lagu bixinayay adduunyo badanna way naga kaalmaysay dowlado aan saaxiibanahay ayaa runtii dadaal aad u weyn ku bixiyay dowladda Turkiga ay kamid tahay Mareykanka uu kamid yahay dowlado kala duwan sababta dadaalka loogu bixinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga dhamaantood ma aha in dad kale oo Soomaaliyeed ay la dagaalamaan waa inay sugaan amniga gaar ahaan inay ka celiyaan dadka nabadiidka iyo argagixisada inay ka celiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga looma dhisin dad Soomaaliyeed oo ra'yi siyaasadeed oo kala duwan leh inay weeraraan waana ayaan darro aad iyo aad u weyn in iyadoo 10 sano dadaalka weyn ee adduunyada una la garab istaagay oo uu filayay ciidankaas inay noqdaan ciidankii aan uga maarmi lahayn AMISOM oo uu filayay ciidankaas inay noqdaan ciidankii ammaanka dalkeena ammaanka dadkeena ilaalin lahaa in la geliyo dagaalo siyaasadeed oo keena kala irdhow ee waxna u dhima runtii kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay isku qabaan ciidamada iyo askarta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka markaan arkay aniga aad baan ugu farxaa maalinba horumarka ay sii gaarayaan laakiin dadka madaxda ah ee siyaasadda u haya ee u adeegsanaya ciidankaas inay dagaal ku geliyaan dad kale oo Soomaaliyeed oo ra'yi siyaasadeed qabo waxaan arkaa inay tahay arrin nasiib darro ee aad iyo aad u weyn ah meel ma garanayo anigu dalkeena oo dagaal sokeeyo soo galay dalkeena oo dawladnimada ay ka burburtay dalkeena oo awoodi iyo wax badan oo lahaa waayay in wixii yaraayeen lagu kaalmeeyay ee noo dhismayay ay haddana sii galaan dagaalkii dad Soomaaliyeed oo leeyahay dad Soomaaliyeed ah laga adkaaday oo xoog looga adkaaday runtii ma aha wax dawlad dhiskeena u adeegayo wax sharaf u kordhinaya ciidankeenana ma aha dad badan waxay aaminsan yihiin dawladdii adigu aad ka mid ahayd iyo dawladaha kale ee dalka soo marayba in dawladdan ay dhanka go'aan qaadashada iyo qabka dawladda ay idinkaga wanaagsanaayeen marka loo eego fargelinta beesha caalamka dawladihii dalka soo maray ay ku hayeen waxaa la socotaa in ergigii gaarka ah ee qaramada midoobay in dalka laga ceeriyo waxaas miyaysan ku muuqan mudan run ahaantii waxaan arkaa qofka Soomaaliyeed in uu ugu tabar daran yahay ama uu ugu nasiib daran yahay marka uu aamino in dad ajnabi ah uu la dagaalamayo oo uu doonayo inuu iska celiyo ka adkaado iyadoo ay dhabtu tahay in qofka Soomaaliyeed loo baahan yahay inuu tanaasul u sameeyo qof kale oo Soomaaliyeed adduunyada inaga inala joogto ama UN-ka ha noqoto ama AMISOM ha noqoto kuma imaanin maxaan ku iraahdaa dhibaato la'aan inaga ina haysato kuma imaan dhibaato inaga ina haysata ay ku yimaadeen marka waa erinay iyo waa ka baxnay iyo qab aan leenahay waxa leenahay qabkeenu wuxuu macna lahaan lahay oo uu qiimo lahaan lahay markaanan u baahnayn dadka ajnabiga ee markaanan u baahnayn laakiin haddii aynu u baahannahay oo nu u baahannahay xataa marka qaar inay ajnabiga isu keenaan oo ayna wada hadashiyaan waa erinay iyo waa saarnay iyo qabkeeni iyo sharafteeni iyo waa waxyaabo kamid ah dhalanteedkii aan ku sheegay inda sarcaadka waxyaabo kamid ah weey wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dalkeena joogay waxa lagu dhibsaday ma ahayn dawladda Soomaaliyeed oo dib u geysanayay iyo mashaakil u geysanayay dhacdo xanuun badan oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxdhacday oo dawladdu ay qayb ka tahay oo ciidanka nabadgelyada Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin ayuu wuxuu codsaday maadaama ciidankaas qaarkiis mushaar iyo taakulo laga siiyo beesha caalamka inay jawaab ka bixiyaan umuuraha noocaas oo kale ah haddaad marka u haysato umuurahaas inay faragelin kugu tahay inaan lagaala hadlin aad doonaysid horta marka koobaad waxa laga rabaa inaadan umuuraha samaynin dhibka dadkaada u geysanayo midda labaadna waxa laga rabaa inaad ka maaranto kaalmada iyo gacan horsiga inaad ka maaranto marka dhibkiina waa sameynaya kaalmadii iyo gacan horsigiina waa u baahanahay haddana qab iyo sharaf baan leeyahay oo la ima weydiin karo haddii la i weydiiyana ciddii i weydiisay waan kula dagaalamayaa runtii aniga uma arka inay tahay wax dow ah uma arko wax sharaf inuu soo kordhinaysana uma arko qofka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxa ay sharaf yeelanaysaa oo qiimo yeelanaysaa markii dadka Soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin markaas laga yaabaa in faragelinta ajnabiguna iska dhamaato
innaguna dad sharaf leh oo qiimo leh inaynu noqono arrinta ku saabsan xoog baa la isku maquuninayaa iyo maxay ahayd waxyaabahana waataan haddaay aan ka hadlayo dadkan Soomaaliyeed way soo mareen anigu ma ogi inay jiraan qolo aan waxaa soo mareen ama aanan joogin markii waxaa soo dhib u dhacay ciidan xooga dalka Soomaaliyeed la dhahaan lahayn oo kumanaan iyo kumanaan ah oo hubaysan diyaarado dagaal baynu lahayn waxaynu lahayn maraakiib dagaal baynu lahayn wixii oo dhan halkay ku dambeeyeen shisheey inta noo yimid nagama qaadanine inaga inta isku laynay oo iska baabi'inay oo sameynay marka wixii maalinta aynu soo marnay inaynu hadda xusuusan wayno oo aynu u qaadanno inaynu isdagaalano oo aynu dagaal ku xalino mashaakilkeena muddada kadib anigu qab iyo sharaf soo noqotay uma arko markiina lagu ixtiraamo inaanan adduunka u baahnayn markaas ayay sharafteena iyo karaamadeena ay soo noqonaysaa waa gartay dadka inta badan qaarkii waxa ay qabaan qaadashada federaalka oo ay Soomaaliya qaadatay inta meesha ay ka saartay dawladdii dhexe ee awoodda lahayd xilligan maxaa ku qiyaasi lahayd xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda horta intaan u galin xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda waa laga dharagsan yahay waxaan doonayaa inaan sheego intaanan dawlad goboleedadan hadda la samaynin dalka Soomaaliyeed yaa xukumay dalka Soomaaliyeed dawladdii uu wada lahaay wixii ka dambeeyay ka haray markii dagaaladii sukaya ay dhaceen way burburtay meelo badan oo deegaano Soomaaliyeed waxay noqotay deegaano aan la xukuminba wax maamul ah yaraatay aysan ka jirin jabhada joogaan qabaa'il tagaan kooxad tagaan waxa bay noqotay marka tii in dad Soomaaliyeed xilli hore sida deegaanka Puntland oo kaleento ay ku baraarugeen war bal inta deegaankana maamul ha loo sameeyo ha isu yimaadeen dawladnimadii Soomaaliyeedna aan isla raadinno haddana kadib 2012 laga bilaabo dawladdii aad hadda tilmaamaysay ee madaxweyne Xasan Sheekh ay ku guuleystay federaalka in la dhameystiro oo maamul goboleedyo la sameeyo oo maamul goboleedyadaas ay noqdaan waxay dadku iska leeyihiin deegaanadaas ee degan macnaheedu waxa weeye dawladdii waxa u suura gashay inay dadka Soomaaliyeed wada gaarto anigu ma garanayo meesha laga keenay cudurka ah in dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka ay col yihiin ama ay isdagaalamayaan anigu waxaan buu arkaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu waa oday iyo caruurtiis ama hooyo iyo caruurtaadu marka inay soo weynaadaan oo ay waxgal noqdaan oo ay tabar noqdaan reerkaaga dhib uma ahane waa xoog iyo awood reerkaaga ku soo kordhay haddii marka reerkaas uu khilaaf dhex yimaado khilaafka waxaa laga rabaa odayga reerka oo waalidka ah oo dawladda federaalka ah inay raadiso khilaafkaas sababtiisa tanaasulaad ay la timaado mararka qaar ay bariso mararka qaar ay u caqli celiso mararka qaar wax allaale iyo waxa dadkaas ay tabareer lagu raali gelin kara in laga shaqeeyo si reerku u wada joogo oo walaalo loo ahaado oo aynu u noqono qaran dhisan laakiin hadday suura gali wayso arintaas oo dawladda federaalka u ekaato inay u xog sheeganayso dawlad goboleed u xog sheeganayso taa waxay sii fogeynaysaa ama nagu celinaysaa meel aynu ka nimaadnay oo ah dalku inuu noqdo meelo kala go'an oo wax xiriir ka dhaxeeya aysan jirin run ahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado anigana waxaan dareemaa runtii madaxdeennana waxay ahayd inay sidaa dareento anigu ma ogi madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxdeenu inay ku faraxsan yihiin marka adduunku isu yimaado golaha ammaanka uu fadhiisto oo 15 dal wakiiladooda ay hadlaan oo kulligood ay ka hadlaan waxaa lagaaga baahan yahay dawladda federaalka waxaa looga baahan yahay dawlad goboleedka waxaa looga baahan yahay in dadkoodii gobolada deganay ay la heshiiyaan oo wada hadlaan oo ay isku afgartaan arrimaha masiiriga u ah arintooda Vietnam baana leh waxaana leh hadday waxaad sheegaysay qabkeedii marka intaasoo dawladood intay isu wada yimaadaan isku luqad ku hadlaan dhammaanteedna ay tahay dawlad kalena laga celin maayo ummad kaloo nagu soo duushay lama laha war dadkan daaya waxaa la leeyahay war adinka madaxdiina Soomaaliyeed waxaa idinkaga baahan yahay waqtigiina waa dhamaanayaaye
doorasho sameeyo wada tashada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdoodo dad isla haatihiin isu imaado ilaa wada fadhiista oo saas ah qofka Soomaaliga ah gaar ahaan madaxda dowladda federaalka waxay ahayd inay xishood dareemaan in adduunyada golo weyn oo la fadhiyo wax looga doodayay ay tahay marka la sheegay deegaanadeena magacoodii Jubbaland Gedo maxay ahayd la sheegayo oo golaha lagu sheegayo ma aha waxana lagu sheegayo wax wanaagsan aan adduunka ku soo kordhinay meel fiican baynu nimid waxa weeye waa kala tagteen waa sii burburaysaan san idinma wanaagsana taariikhdiina xumaanayso isu imaada meesha baynu yeenu joognaa marka anigu waxaan qabaa inay tahay lagama maarmaan in dowladda federaalka madaxdeeda ay ka shaqeeyaan in dowlad goboleedyada ay isu keenaan isu yimaadaan si looga wada hadlo arrimo aan dowladda federaalka kaligeed qaban karin hadii aan laga heshiinin wata mudan xilbaan aad baad u mahadsantahay wali waraysiga ayaan ku guda jirnaa iyadoo qeybaha dhexe aynu marayno arrimo badan oo xasaasi ah ay inoo dhiman yihiin sida doorashooyinka iyo arrimo badan oo qarsoon mar waxaa soo noqotay wasiirka garsoorka waxaana inta badan cabashooyin ay ka taagan yihiin mararka qaar arrimaha garsoorka dadka qaarkiina waxay mararka qaar sida waxyaabaha bulshada ka dhex guuxa ay ka mid tahay in cadaalad ayadoo la raadinayo meelo shabaab ay ka tiilaan dadku inta badan ay tagaan oo halka maxaa loo heli yahay garsoor loo dhan yahay oo dadka u cadaalad falo ma dadkii ayaa qaldano oo meel kale cadaalad wax ka raadinayo ma garsoorka dhibaato ka taagantahay maamulku waa soo martay wasiir oo noqotay arrimaha garsoorkana aad baad aqoon badan ugu leedahay waa mahadsantahay runtii garsoorku waa isii xigaa aniga waa iga xigaa hay-adaha kale ee dowladda waa iga xigaa ma aha kaliya inaan ka soo shaqeeyey waa inaan soo bartay oo aan aqoontaa waxyaabihii aan soo bartay ay ka mid tahay garsoorkeenu wuxuu burburay dowladnimadii hore intaysan burburin ka hor cadaalad darraa dhacday isagaa ka hor burburay burburkiisaaba keenay in dowladnimadii laga aamin baxo ilaa iyo intii ka dambaysayna laguma guulaysan in si sax ah loo dhiso marka xilligii aniga aan joogay tallaabooyin la qaaday ayaa jirta tallaabada ugu horeysa waxay ahayd in la waafajiyo dastuurka federaalka ee ku meel gaarka oo sheegayo in la sameeyo golaha adeega garsoorka qodobka 109 ee dastuurka ku meel gaarka ah golaha adeega garsoorka waa golo madax bannaan oo loogu talagalay in si sharci ah lagu sameeyo marka xilliga aad sheegaysid oo anigu wasiirka ahaa waxaa baarlamaanka la hor keenay golihii sharcigii lagu sameyn lahaa golaha adeega garsoorka sharciga lambar 28 ee soo baxay bishii Juun 2014 sharciga wuxuu qorayay in muddo 30 maalmood gudahood lagu sameeyo golaha adeega garsoorka golahaas la sameeyay adeega garsoorka ee madaxa bannaan sida loo sameeyo dastuurka ku qoran tahay iyo sharcigaas ee madaxa bannaan ayaa qabanaya hawsha magacaabista iyo xilsiinta iyo shaqo ka fariisinta hay-adaha garsoorka iyo dadka garsoorka ka shaqeeya nasiib daro proposalkii ugu horeeyay oo aan keenayba xilligaas mushkilad buu la kulmay taana waa mid keentay aniga inaan wasaaradda la iga wareejiyo oo xukuumadda nafteeda halkaas ay ku dhamaato maalinta laga soo bilaabo marka kadib wasiirka iga dambeeyay waxa uu xoog saaray in golihii inta la soo magacaabo xubnihiisa la soo magacaabi kari baarlamaanka la keeno baarlamaankii sagaalaad waxa uu dhamaaday iyadoo xubnana ay magacaaban yihiin oo golihii wasiirada ay soo magacaabeen xubnana ay joogaan oo xilalkoodii ay ku joogaan dowladdan cusub baa dhalatay waxay ahayd shaqada ugu horeysa in laga bilaabo in xubnahaas iyo haddii wax laga bedelayaba dowladdu ay siiso hortabinta koobaad in golaha adeega garsoorka la sameeyo nasiib darro lama samaynin waxaana la socdaa maadaama aan ka tirsanahay guddiga cadaaladda ee golaha shacabka waxaana la socdaa in intaasoo isku day la sameeyey in xubnaha lasoo magacaabo laakiin mar allaaliyo marka la keeni rabo golaha wasiirada ay talooyin ka yimaadaan xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha hebel ha laga reebo annaga ma doonayno waa la isku khilaafayaa marka qaarna qaylo meelo kale oo maamul goboleedyada iyo waxaas ay ka timaado waxaan dareen qabaa inaysan jirin rabitaan dhab ah oo ka socoto
madaxda dowladda in la sameeyo golaha adeega garsoorka meeshii shaqada laga qaban lahaana madaxweynuhu waxa uu magacaabaa garsoorayaal buu magacaabaa oo ah arrin khilaafsan dastuurka waxa uu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu magacaabay garsoorayaal iyo dad kale marka kuwaas magacaabistoodaba way sahlanaatay golihii adeega garsoorka way sahlanaan lahayd haddii uu jiro rabitaan dhab ah oo madaxda dowladdu ay u qabto in la sameeyo golaha adeega garsoorka haddaanan golaha adeega garsoorka la samayn wax kastoo la magacaabo iyo waxay ku dhammaanaysaa un qof jeclaysi iyo daddii loo awood sheeganayo iyo dad aan madax bannaanayn ayay noqonayaan anigu shakhsiyaadka la magacaabay qaarkood baanba saaxiibo nahay oo isku meel wax ku soo barannayo iyo saasoo kale iyagu eed gaara hadda aan u soo jeedinaya lama arko laakiin waa gaboodfal aad u weyn in muddada intaa la eg iyadoo golihii wasiirada ugu dambeeyey uu soo gudbiyey golihii adeega garsoorka inaanan tallaabo loo qaadin oo aan loo dhaqaaqin marka haddaanu saas jirin maba jirtaba hab lagu xaqiijin karo cadaaladdu inay madax bannaan tahay ma jirto hab lagu xaqiijin karo ama lagula ama xataa lagu dabageli karo ciddan garsoorka haysaa iyo cid xukunta ma jirto taasna waa midda keenaysa in kalsoonida shacabka ay lunto kalsoonida dadka markay lunto waxay aadayaan meesha ugu dhow ee ay isleeyihiin waad ka heli karaysaan cadaalad waad ka heli karaysaan waa wax aada u nasiib darro ah in dee dad maanta colaad badan dalkan geliyey oo nabaddii u diiday iyaga lama ciinbido waxaana qabaa inay tahay wax la qaban karo in golaha adeega garsoorka si hufnaan ay ku jirto loo sameeyo watahay aad baad u mahadsantahay weli daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa waraysiga aanu la yeelanayno Farax Cabdiqaadir siyaasi saameyn badan ku leh siyaasadda dalka dowladda haatan dalka ka talinay 3 sano u dhamaatay waxaa u harsan sanad wax ka yar adigoo xildhibaan aanay 8 bilood ayaa ku harsan ma kula tahay xilligii doorashada lagu ballamay ee la wada sugay inay dhici karto horta anigu kama hadlo inay dhici karto inay dhici karto doorashadu waa waajib waa inay dhacdaa haddii doorashada dhici waysa macnaheedu waxaa weeye joogitaanka dadka kuraasta ku fadhiya waa joogitaan sharci darro awood waa xil isku dhajin waa maxaan ku iraahdaa xuquuqdii shacabka uu lahay oo lagu xadgudbayo waa ballanka bax marka ma dhici karta iyo ma dhici karta iyo sheekadu ma taagan waa inay dhacdaa waa inay doorasho dhacdaa oo sidii lagu ballamay ay u dhacdaa oo haddii ay dhacdo sidaas inaanay u dhici karin ay timaado wax la isku ogyahay oo laga wada tashaday waxaan ku faraxsanahay in golaha shacabku iyo aqalka sare ay soo gudbiyeen sharcigii doorashooyinka madaxweynahana uu sameeyay waa wax aad u soo daahay marka qaar waxaan isweydiinayaa oo waxaa inta hadda la qabtay miyaanan la qaban karin 2017 waxaa intaas sii dheer marka oon rabnaa inaynu ogaano sharcigu waa qayb ka mid ah doorashada laakiin doorashadii ma ah sharcigu waa sida adigoo lagu siiyey shati aad dukaan ku furato oo kaleeto laakiin dukaan inaad furato warqad baan haystaa sharci baan haystaa kuguma filo waa inaad meesha aad dukaanka ka dhigan lahayd waa inaad haystaa spacekii meesha dukaanka ku noqon lahayd waa inaad haystaa badeecadii aad gadi lahayd iyo sidii aad ku gadan lahayd marka waxaynu u baahannahay oo su-aasha koobaada dadka Soomaaliyeed ee wada leh ee saamilayda ku ah arrimaha siyaasadda iyo hogaaminta dalka iyo mustaqbalkiisa waa inay ka tashadaan waxyaabaha talada u baahan oo ay isaga yimaadaan waa in nabadgelyadii lagu qaban lahaa la xaqiijiyaa waa in guddiga doorashada ee madaxa bannaan awoodda uu u baahan yahay qalabka uu u baahan yahay hantida uu u baahan yahay waa in la siiyaa oo loo keeno taas waa waajibaad ay dowladdu leedahay marka sharciga keliyana kuma filla laakiin haddaan waxyaabahaas laga shaqaynin haddee doorasho inaanay dhacaynin waa dhici kartaa laakiin anigu maba garanayaba
sabab loo yiraahdo doorasho ma dhacaysa iyo ma dhacayso doorashadu waa inay dhacdaa waa waajib haddii ay waqtigeeda ay dhici weyso waqtigii lagu ballamay oo si kastaba maaragta ha u baaqsato ama dhan dadaalka dowladda ama siyaabooyin kala duwan inkastoo weli doorashada sida loo galayo aan weli la cadaynin haddii ay dhici weyso maxaa xal horta wax la yiraahdo haddii ay dhici weyso ma jirto doorashadu waa inay dhacdo horta haddii la yiraahdo haddii maba taalaba ma ku xasuusiyo xilligii xasan sheekh oo adigu aad lagugu xaman jiray waliba talada ugu badan dalka dowladii xasan sheekh uu hogaaminay ina gacanta maaragta dadku ay kugu xaman jireen ina gacanta ku haysay muddadii loo ballamay kuma aysan dhicin doorashada si kastaba ha ku dhacday doorashadii 2016 iyo 2017 anigu gacanta kuma haynine doorashadaas waxaa gacanta ku hayay dowladda Soomaaliyeed iyo hoggaankeeda oo ka wada kooban dad Soomaaliyeed iyo guddiyo loo sameeyay heer gobol iyo heer federaal oo shaqada gacanta ay ugu jirtay shaqada gacanta ku jirtay oo la waday doorashadu waxay bilaabatay intaanu howlaheedu waxay bilaawdeen 9 bilood ka hor intaanu xilligii dowladda dhamaan duruufo jiray wada hadalladii socday awoodii dowladda iyo intay la ekayd baa laga yaabaa garaangarkaas inay wax meel ku gaareen ama maalmo ay ku daaheen ama noocaas oo kale meelaha qaar doorashadu waxay ka dhacday bishii November waxay ka dhacday bishii October ma aha waxaad sheegaysay marka meel la yiraahdo muddo ku darsi oo golayaal dowladda intay ka hadleen ama dad Soomaaliyeed ka wada hadleen ama madaxweynaha uu ka hadlay oo muddadii muddo lagu darayaa la yiri ma jirto anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed waxa kasabka ay haystaan waxa weeye ballamihii ay isku ogaayeen inay fuliyaan ballamahaas ay isku ogaayeen waxa weeye muddo xileedku waa muddo go'an oo sharci ah muddada waa in lagu soo dhameystiraa shaqadaas ciddii shaqadeeda gabadfal ku samaysay waa in shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay kala xisaabtamaan dib u dhacaas iyo gabadfalka la sameeyay laakiin anigu ma qabo jid u furan oo leeyahay waa lagu dib dhacayaa iyo hadii la dib dhaco maxaa la sameeynaya hadii jid furan inay tahay ilama watahay inta ayaan guud ahaanba arrimaha doorashooyinka kaga soo gudubno sida la socoto dalka waxaa ka hana qaaday ama ka dhismay xisbiyo aad u badan sidee kula muuqataa xisbiyadaasi maalin ka dambayso soo dhismayo maxay faa'iido ugu tahay dalka runtii dadka Soomaaliyeed wayna soo fahmayaan marar badan baan aan ka qayb galaa kulamo iyo waliba dadka dhalinyarada iyo ay ka hadlayaan iyo dad badan oo ay u suuragali waysay ka qaybgalka xukunka iyo ka qaybgalka siyaasadda iyagoo ka cabanayo inay mushkiladu tahay qabiilka iyo odayaal dhaqameed iyo dad gaar ah oo isku koobay shaqadii iyo hankii siyaasadeed isku koobay marka xisbiyadu waxa ay kamid yihiin wadooyinka ay ku suuragali karto ka qaybgalka siyaasadeed oo dad aad u tiro badan ay uga qaybgali karaan go'aan gaarista dalka ay uga qaybgali karaan kaliya doorasho ma aha laakiin ilaa iyo in qofka la doorto ama uu wax doorto ama saas oo kale iyo in meelaha ra'yil caamka laga saameeyo oo siyaasadda laga saameeyo oo laga falanqeeyo oo xataa dadka ay ku tababartaan xataa dadka ay isku bartaan run ahaantii sharciga de hadda inoo yaalo oo xisbiyada waa qabyo oo waxba ka dhiman sharciga qabyada ayaa hadda xisbiyada la diiwaan galiyay lagu sameeyay marka waxaan rajaynayaa horta marka koobaad in sharcigaas qaybta ka dhiman la dhameystiro midda labaadna dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa inay dhiiri galiyaan in siyaasadda ay qaab xisbiyeed ay ku galaan inay iska fogeeyaan siyaasadda qaabeeleed inay ku galaan inay ka fogaadaan siyaasadda qaab kooxeed inay ku galaan taas bayna siyaasaddu macno ku yeelan kartaa waxa aad nasiib darro u ah in dhiirigelin badan aanay helin arrinta xisbiyada kow haddii xaaladda amniga gaar ahaan oo aan dee iska dhibaato badan oo fursado badan aanan siinaynin dadka kulamadooda iyo wada hadalkooda iyo isgaarkooda iyo sheekaysigooda iyo waliba si xorriyada in looga hadlo qaybna waxaa ka waliba mushkiladaas dowladda federaalka iyo madaxdeeda oo ka shaqeeya caburinta oo ka shaqeeya in la diido
kulamada qaar ee xisbiyadu ay samaysan lahayn adigana waad ogtahay waxyaabaha qaar ee soo dhacay tusaalena waxaaba dadka ugu filan in iyadoo la rabay in xisbiyada samayntooda la bilaabo xilli hore lana isdiiwaan geliyey oo sharciga xisbiyada waxaa la sameeyey 2016 in xataa madaxda dowladdu madaxda xukuumaddu aanay lahayn aanay xisbiyo ku jiran xisbina aanay lahayn una arkayaan mararka qaar xisbiyadaas kaleento oo dadaalayo oo isu tegay oo noocaas oo kaleeto waxaa iyadana runtii wax in la taabto u baahan oo nasiib darro ah in dowlad goboleedyada qaarkood aanay weli ku qanacsanayn in xisbiyo laga furo deegaanada ay iyagu gacanta ay ku hayaan taasna waa caqabad kaloo haysata laakiin waxaan rabaa dadka dhalinyarada ah iyo dadka Soomaaliyeed ee doonaya mustaqbalka Soomaaliya inuu iska bedelo haybta qabiileed oo runtii hoos inoo dhigtay mararka qaar in xisbiyada siyaasadeed ay yihiin meesha isbedelka uu ka imaan karo xisbiyadu duruufaha haysta darteed way kufkufayaan mashaakilaad bay la kulmayaan awoodooda iyo kartidooda wali ma dhisna laakiin waxaan aad u aaminsanahay jidka kaliya ee inoo furan ka qaybgalka siyaasadeed ee saxda ah waa jidka xisbiyada siyaasadeed waxaa sheegtay in xisbiyada ay bedelayso habkii Soomaalidu ay wax ku qaybsan jirtay oo qabaa'iliga ah 30 sano kadib hadda waxa magaalada Muqdisho iyo gobolada qaar ee dalka ka bilaabanayo ama meelaha qaar ba ay ka dhaceen si hordhac ay ugu sii dhaceen arrimo qabiil ku saabsan oo siyaasadaha dalka looga tashanayo qabiil kasta cad moodaa in ay siyaasadii laga wada shirayo Puntland shirey iclaamisay oo runtii qaab qabiil ah Muqdisho ka wareysay mudlood shirkoodii oo ay ka qayb galeen dad siyaasiyiin magac ku dhaxlay bulshada madaxweynayaal wadanka soo talin jiray sidee kula muuqataa in 30 sano kadib dadku ay qabiilka hadana siyaasadii qabiilka oo ay kaga wada tashanayaan hadana sidee isku waafaqayaan doorashadan iyo qabiiladii soo laabanaya runtii qabiilada maxaa keena iyo qabiilaysiga maxaa keena qofka muwaadinka ah haddii muwaadinnimadiis oo xuquuqda u lahay uu ku helayo oo ay kamid tahay inuu xor yahay oo ay kamid tahay inuu ammaan helayo oo ay kamid tahay inuu helay xuquuqda muwaadinnimada ayaa ku filan haddii ay jirto cid u damaanad qaadayso markuu xuquuqda waayo ama uu dareemo xuquuqdaas inay ku xadgudbayaan kuwii mas'uuliyadda lahay qofku wuxuu raasanayaa meesha ugu sokaysa ee uu ciirsan karo raasanaya marka haddaad aragto dadka oo qabiilka ku yaacay oo isdoonanayo oo le saynu isu difaacnaa saynu danteena u ilaalinaa mustaqbalkeenu muxuu jiraa waa niyad jab ka yimid nidaamka dawladeed ee meesha ka jiro isaga ayaa hanan waayay dadkii Soomaaliyeed u muujin waayay in dawladnimo la wada leeyahay jidkeedii la hayo mararka qaar shaki gelinayo waxyaabo iyo waajibaad loo baahnaa in la qabto oo xilliga munaasabka ah lagu qabto marka sheeko dhalanteed ah iyo xaflado iyo riwaayado iyo maxay ahayd taalooyin baan dib idinkugu dhisayaa lagu mashquuliyo oo wax qabad looga dhigo dadku waxay isweydiinayaan ma dhabbay ka tahay dadkaan hogaaminaya inay nagu wadaan wax aynu wada leenahay iyo jid aynu wada leenahay marka bay dadku raadsanayaan xagee kaleeto oo aynu wax u doonanaa yeynu ciirsanaa marka aniga waxaan rabaa in lagu akhriyo midaas wax hadda bilowdayna ma aha dawladdeennii oo xoog badan oo ciidamo haysato oo hadda maalmaha waxaad maqashay dawladda horumar bay gaartay oo deyn cafis baa la inoo sameeyeyoo maxaan ku iraahdaa adduunkii baan ictiraafayoo shidaalkii baynu soo saaranaynaa waxyaabahaasoo dhan wax ay tarayaan lama arko haddii dadka Soomaaliyeed aysan dareemin dawladnimadii inay wada leeyihiin oysan wada hadal oysan ku heshiin oysan isku afgaran oysan isugu tanaasulin waxaan ku siinayaa sheeko yar waan ka xumay inaan kugu dheereeyo 1983 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu tagay dalka Mareykanka waxaa qaabilay madaxweyne Reagan waa arrin weyn in madaxweynaheeni uu tagay Mareykanka oo uu qaabilo madaxweyne Ronald Reagan
markaa heshiis saaxiibtinimo war Soomaaliya dowladnimadeeda hala kaalmay marka bangiga adduunka iyo IMF ayaa la hadlay Soomaaliya in kaalmooyin la siiyo oo laga kaalmeeyo arrin la yiraahdo structural adjustment sidii dhaqaalaheeda dib loogu dhisi lahaa sidii howl loogu qaban lahaa oo loogu sameyn lahaa sanadkii 2013 madaxweyne xasan sheekh aniga oo la socda ayaa waxaanu qaabilnay bangiga adduunka waxaanu ku aragnay in la yiraahdo Mukhtaar Diyaw oo bangiga adduunka u qaabilsan arrimaha Afrika Vice President of Africa marka wuxuu inoo sheegay 1988 waa nin Senegalese inuu ahay wakiilka bangiga adduunka ee Muqdisho u jooga bangiga adduunkan uu kaalmeynay marka waa ninka processka habkan hadda oo deymaha khafiifintooda sheeka cafis leeyahay inaysan jirin dadka dhan way og yihiin khafiifintooda iyo waxyaabaha ku saabsan iyo hawsha la bilaabay way dawladda Soomaaliya 2013 marka bangigan adduunkan maanta sheegayno maalintaynu dumaynay buu nala joogay laakiin waxyaabaha aynu ku dumaynay waxba noogama qaban karin 86 iyo 88 iyo sharikada waaweyn oo Mareykanka ee Conoco Philips iyo kuwa kalena way nala joogeen oo heshiisyo shidaal qodis dawladda Soomaaliyeed la saxiixanay laakiin dawladda Soomaaliyeed waa dumaysay waxaasi dawladnimada kuma dhisaya dawladnimada waxa ku dhisay dadkaad inaad haysato jabhadii SSDF baa samaysantay jabhadii SNM baa samaysatay annaguna waxaanu leenahay madaxweynaheennii waa ka Reagan la fadhiyo bangiga adduunka waa ka inoo yimaaday sharikadii adduunka waa kuwaas shidaalka noo soo saarayo waxaasi dawladnimada laguma dhiso dawladnimada waxa lagu dhisaa dadka Soomaaliyeed inay wada hadlaan wada heshiiyaan xorriyad isu helaan isu tanaasulaan isla gartaan nidaamka siyaasadeed wax isu quuraan meesha marka iyadoo adduunkii sida aanu anagu u sacbinayno oo sheekada aynu isu sheegayno yaanu aragnay wixii oo dhan oo nagu dumay marka nooma wanaagsana mar kale inaynu intaynu iska indhatirno xaaladeena dhabta ah waxyaabo dhalanteeda oo aanan waxba weyn noo qabanaynin inaynu dadkeena ku mashquulin watahay dhanka kale ma aaminsan tahay in dawladdan dadaal badan oo dawladihii waddanka soo maray aysan ku bixin jirin ay dawladdan ay ku bixisay oo arinta wada hadallada Somaliland in hadda ay isku furtay wallahi ma ogi caawa inaad ugu dan leedahay in wax kasto dawladda lagu dhaliil lahaa aad i weydiiso si aan dhaliisheeda u sii badiyo waxaan aad u jeclaan lahaa marka inaad weydiiso wax dawladda lagu amaani karo dawladda socdaal farmaajo in Hargeysa horumarkaas in la gaaro dadaal soo ma jiro dawladdu hadii ay amaan lahaan lahayd meelaha ay amaan ku leedahay kamid ma aha arinta Somaliland dawladdii Sheekh Shariif iyo dawladdii Xasan Sheekhba waxa ay sameeyeen kulamo intaas guddiga ay u saareen shirara la qabtay heshiisyo hordhaca la gaaray kalsooni dhisbaa la sameeyay labada madaxweynaba mid kasta waxa uu dhowr jeer la kulmay madaxweynihii kan ka horeeyay ee Somaliland silaayo iyo madaxweynayaashii Soomaaliyeed way kulmeen in maanta marka la yiraahdo wallahi horumar baan gaaraynaa maxaa yeelay madaxweynaheennii baa u socda Hargeysa Abi Ahmed buu raacaya by the way anagu madaxweynaha Soomaaliya kama aanan maqal Hargeysaan aadaya kama aanan maqal laakiin warka ka soo yeeray Somaliland iyo madaxdeeda ayuu ah arinta Somaliland waxa ay u baahan tahay oo runtii halkaan aan rabaa inaan ka sheego sidaan ka weyn oo ka qiimo badan oo ka mug weyn in loola tacaamulo marka koobaad wax allaale iyo wixii niyadda dadkeenaas halka degan oo runtii qabo dareen ah inuu dulmi iyo wax weyn ay ku dhaceen sidii niyadooda lagu kasban lahaa oo lagu soo celin lahaa ama ha noqoto kaalmada caalamiga ama ha noqoto arrimaha ganacsiga ama arrimaha loo fududeyn karo marka koobaad in loo fududeeyo kadibna la galo wada hadal dhab ah oo ka tarjumaya sidee waxyaabaha ay tabanayaan iyo sida ay tabanayaan dee waqtina la siiyo
oo aanay iska noqonin un waa meel baan u socdaa iyo meel baa la igu sawirayaa iyo meel baa la igu waxaynayaa inaanay noqon haddii waxaad sheegaysana hadda maba hirgelinoo maysan suuragelin marka aniga waxaan qabaa arrinta Soomaaliland inay ka mid tahay qadiyadaha ugu waaweyn ee dalkan yar dowladnimadeenna marar horena meelo kale aan ka sheegay marna kaamil ma noqonayso inta Soomaaliland ay naga maqan tahay waa dad Soomaaliyeed qiimo badan leh qiiro badan qabo wax weyn ku soo kordhiyay dowladnimada markii ay la wada joogay wax weyn ku soo kordhin doona marka la midoobo dhul istiraatiiji ah iyo awood badan iyo resource badan ee meesha way inaga jiraan waa tahay gabagabada barnaamijka ayaanu ku sii dhawaanay su'aasha ugu dambeysay aan ku weydiinaya waxay tahay waxaa jirta xal ah in ururka shabaab oo in badan dowladaha dalka soo maray ay dagaal kala hortagayeen waxaa haatan soo baxaysa in meelaha qaarba shabaab ay canshuuro ay ka qaadaan haddiiba dadku cadaaladna ay u dooranayaan shabaabna xarumihii waaweynaa weliba madaxda iyo siyaasiyiintaba la leeyahay waa la ogyahay arrintan canshuuro ay qaataan maxaa diidayo in shabaab waa dhalinyaro Soomaali ah in lala hadlo sida la socotaba Taliban wada hadal kadib heshiis la wada gaaray waxayna ka mid ahaayeen shabaab iyo Taliban dabcan waa dad isku dhow hadaysan isku mid ba ahayn arrintaas horta dee arrinta ku saabsan shabaab iyo Taliban waxaan u maleynayaa farqiyo kala duwan baa u dhaxeeya anigana dadka aad u daraaseeya baan ahay arrimaha dowladaha fashalka uu ku dhacay iyo gaar ahaan Afghanistan iyo Iraq dee meel u dhow Afghanistanna waxaan ku soo bartay oo dabeecadda dadkaas iyo waxaas waan garanayaa awoodda iyo fikirka shabaab iyo Taliban farqi aad u weyn u dhaxeeya marka shabaab kuma gaarsiisana awoodda dadkaas oo la aragtay siyaasadeed oo dalkooda si loo xukumo ah mararka kamid ah dalkoodayba xukumayeen oo ay madax ka ahayn dawlad ay u ahaayeen shabaabna hadda maanta sida muuqaalkooda ay yihiin dad aragti siyaasadeed leh oo aragtidaas siyaasadeed oo in lagala doodo u baahan muuqaalkeeda ma laha laakiin nasiib darraba intaa waxaa ka sii daran dawladdan hadda aynu leenahay awoodda ula ama kartida ula ama inay wada hadal la gasho dadka mucaaradka ah oo ra'yiga kala qabo ama dawlad goboleedyada haddee shabaab oo meel laga doonaba hadda aniga aanan garanaynin